انتو كفار لا اله اروح كفار انا فايده كتقول ايمان قال كافاتنا warcaawo Soomaaliya horta qarankii hoos ma u leecay waa maqli jiray caawa maqlay u soo duceeya faataxada u soo mara culimada mashaajidka waaweyn ku jiraan quraanka u soo akhriyaan ciyaal casiir ilaahay magaciisa ku dhaartay sida daawada muuqaalka hordhaysa ka soo aragtay bal waa fartuun balbalaarka iyo asxaab ka mid ah baraha bulshada oo aad iyo aad u murugsan maadaama xulka qaranka Soomaaliya xalay 2 gool ee Algeria ka dhalisay xulka qaranka Soomaaliya oo dad badan ay taageersanayeen iyo dad badan oo xalay habeen aad u madow ay u ahayd maadaama ay aad u murgeen xulkooda qaranka Soomaaliya 2 goolna loogu badiyay goosho horena laga dhaliyay faktor ee ciyaarta Kambiyada mid dambana Kambiyada labaadna gool kale laga dhaliyay xulka qaranka Soomaaliya oo xalay 2 gool aad loogu dhaliyay maadaama asxaabto idilna ay u daabasho tageen iyo dad baraha bulshada caanka ah ay astaan ka daawanayeen maadaama ay aad u murugoodeen markii koow hasha gool laga dhalinay ee Soomaaliya oo idil ay xulkooda ay rajo ku jiifeen iyo in Algeria ay ka badin doonaan dad badanna ay ku dacwoonayaan ay ku madaacadeynayaan Algeria ay leeyihiin iyo xulkeena qaranka Soomaaliya dadka xulka qaranka Soomaaliya u safan in ay aad u yeelyiin Algeeriyankana maadaama wajigooda la fiiriyay iyo garka ku yaalo dad lagu qiyaasayo da'ada 30 sano jir ilaa 28 jir ay dadka qaarna leeyihiin ma isku barbar dhigmaan laakiin xalay Algeria oo aad banooni u la yaab badan dheeshay xulka qaranka Soomaaliyana banooni meesha lagu baray iyo sida banooniga loo dheelo maadaama xulka qaranka Soomaaliya oo hadda ka hor ay koob ay ka qaaday koobkaasi Afrika oo wiilka la leeyahay Cabdixafiid uu u dheelay Cabdixafiid oo hadda ciyaaraha laga reebay xulka qaranka Soomaaliya Algeria oo haddana lagu dacaayadeynayo in ay maadaama ay aad u waaweeyeen iyo dad baraha bulshada caanka ay fahmi la'san yihiin dadka qaarna ay baquusteen ay ka rajo quusteen maadaama xulka qaranka Soomaaliya ayagoo u jeedan la tumay ayna halahaasi ka xun yihiin aadna u xanaaqeen dad badan oo xulkooda aad ugu faraxsanaa markay ciyaarta bilaabanayso xulka qaranka Soomaaliya dad badan oo Soomaali ah in ay leeyihiin ciyaarta hadda ayay bilaaw tahay xulkeena qaranka Soomaaliyana waan ku kalsoonahay mana niyad jabi doono ilaa ciyaarta ay ka dhamaato dad badan ay aad qalbiga ugu dhisan tahay dad badan ay qalbiga ka jabeen maadaama hal gool oo Kambiyada hore ee Algeria dhalisay Kambiya labaadna xulka qaranka Soomaaliya 2 gool sidaas loogu dhaliyay Algeria oo banooni la yaab badan la imaaday da'adoodana markii dadka qaarna ay Soomaaliya ay xanaaqeen ay sheegeen in oo Algeeriyaanka ay dad waaweyn ahaayeen xulka qaranka Soomaaliyana ay ilmo dad aad iskaaga da'yar oo 17 sano jir ee maadaama Algeeriyaankana la qiimeeyay in ay dadka qaar ay Soomaalida ay sheegeen in ay da'ada 30 sano jir iyo meelahaas ay u dhaxeeyeen xulka qaranka Soomaaliyana wiilka la leeyahay Cabdixafiid oo saasi loogu reebay banooniga maadaama xulka qaranka Soomaaliya xalay aad iyo aad loo tumay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka murugsan yihiin inshallah laakiin dadka Soomaaliyeed oo idil man la jabi doono xulka ilaa hadda way dheeli doonaan guulna waa rajeyneynaa Soomaaliya guul ayaa leeyahay nagu soo biiro subscribe noo dhigan baleelka noo furo muuqaalkana like la wixii fikrad ka qabtidna qaybta commentiga noo la wadaag sidaas iyo nabadgelyo